العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد مسؤولين تقرن كأكل الأول يدلوينا غير قلشات دمانتين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنت فرحت وين أوكي ما بدنا ودرين كيجي كعسي أيام نكوكا باللي فين تأيو ده فوق الدجمة قلشات وادب وان قادنا هذا الكؤدم بيه سلطان إبراهيم دعر وحن كل برا قادنا ما دام نهيدتي حلك وهي دجمة وحلا وحي دولتنا في جحدنا إنه هذين يبان يجي تاجنو تاسب الله وياه طلبات سيد الله شيء مريء دجمة بير له ده هاي أي حول له ده هاي أي استراتيجيك لوكيشن تاعي قاد استراتيجية أو أفك كويسة دل عن حدود بدل هاي والبدلش في سورة بدية هاي مركان يكون تردار يا وحوي إن دقمة ما كيدو حرير وناكسن لا يشوا دقمة أي درس كيين تل كان درس كناي أو برا أما تردار بيت كيتون كان نقطة إسكاشي كراسي يمد تداره يمد أمني إن يدلي لكان أيام يكون تردار إنما من دقمة خاصة هي مجتمع مشغول نولفا taasi qodobadaan halka yiraahdo waa run oo degmooyinkii u dambeeyay bixiyay bay ahayd sida sadafku isu xil saaro ayay degmo ku noqon doontaa waxaan halkan indhahayga maanta ku arkaya dadkii na doortay oo deegaankoodii abaar ba'an ay hayso waxaan baa halkan uga jeedinayaa xukuumadda hay'adaha caalamiga dad iyo duuyo dadkii gobolka awdal iyo salal ku noolaa inay abaar la ildaran yihiin baa noo muuqata waxaan mahadnaq u jeedinayaa dadweynaha qurbajoogga ee deegaanadan ka soo jeeda ee ilsuxil saara inay wax soo caawiyaan dadkooda ayaan mahadnaq u jeedinayaa waan ognahay qurbaha inaanay lacag bilaasha ku haysan inay dhiigooda soo miiraan ay dadkooda soo xasuustaan waxaan u ballan qaadaynaa uguna bishaaraynaynaa ku rabsaami maayaan qurbahee dalkeenno barwaaqo ah in loo sii gobol xaari doono abaalkoodana la gudi doono dadka dibadda inoo jooga waxaan iyadana halkan mahadnaq uga jeedinayaa waxa weeye دوان waxa xafiiska madaxtooyada ee halkan suldaanku ka maagayay inkastoo uu qaatay inuu dardaarayo haddana deegaankii Soomaaliya dibta dadka loogu geystay mar dhaweyd waxaan ugu mahadnaqaynaa in islaanta madaxweynuhu uu xoogaa u soo dirtay waxaan leenahay wixii u badnaana waa laga sugayaa waad ku mahadsantahay dadweynuhu halka abaalkii way kugu hayaan hay'adaha caalamiga waa run oo maalin walba waxa soo dega raashin WFP leedahay raashin ay WFP leedahay oo dadka macaaluushu haysay abaaraha loogu talagalo ayaa maalin walba soo dega waxaan arkaynaa deegaankii aan ka soo jeednay oo ka qatan taasi xaqiiqo weeye midaan la dafiri karin weeye waxaanu codsan doonaa internationally aan u codsan doonaa donoriska aanu sheegaynaa deeqda laga soo qaado haddaan dadka la soo gaarsiin raashinkii deeqda ahaa ee la soo bixiyey waxaanu caalamka ka codsan doonaa in audit internationala loo soo diro xafiiska WFP ee Somaliland jooga ayaanu codsan doonaa waa xaq baan u leenahay dadkay ka timid waxaan dad baa sabaqo laga soo ururiyey dadkii loo soo bixiyeyna haddii aanay soo gaarayn xaq baan u leenahay in la audit gareeyo oo la baaro oo musuqmaasuqa jira la taabto WFP xafiiskooda ay ku leeyihiin Somaliland dadka iyagu islaam qatanaan maayaan waxa walaalayaan dii sheegaya taariikhda waa laga warrama Somaliland baynu nuguna dhiiggeenii baa galay deecaankeenii baa galay habeen iyo maalin baynu u dhimannaa horaynu ugu soo dhimannay haddaynu u dhimannaa aqbali mayno in la gorgorta geliyo masiirkeenna iyo Somalilandnimadeenna aqbali mayno laa baarlamaan walaa madaxweyne walaa mid kale wax ku doonaya kama yeelayno masiirkaan ku tashanay waxaan inagu go'aansanay ugu talinay boorame waxaan ku go'aansanay in gorgorta la geliyo aqbali mayno Soomaalina innagaa nidhi ka go'anay oo danteennaan ahayn haddii laynagu gorgortamo maanta ma nihin dad hurdo lagu gorgortami karo waxay noo ballanaa Somaliland baynu nahay Somaliland baynu wax ku goosanaynaa Somaliland baynu joogaynaa haddii hargeysa iyo burcasaarka xawar qabto inagu ka tumayna xawar laga soo tumo inaguna talagu dib isugu noqonaynaa yeeli mayna Somaliland lagu gorgortamo Somaliland baynu nahay waynu ku dhimanay ifarkeennii oo dhan baa galay dalaalkeennii baa galay aqbali mayna in la khasaariyo oo aanu noqono dad maalinba dhinac loola ardo
oo 20 sano dhinac loola xiisoodo noqon mayno Soomaaliland baynu nahay Soomaaliland baynu ku dhimanaynaa taas ay noo ballana siyaasiyiin bay noo dantahay mustaqbalkeennii baa ku jira ummad baynu nahay xor oo tashatay aqbali mayno in walaa Ingiriis ka yeeli mayno walaa Turki in loo taliyo oo ummaddankayaga mustaqbalkiisa ajaanib ka taliyana aqbali mayno waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala waxa garadka inta meeshan inoogu timiday ee naga ajiibtay masaqaadkan aan ugu ducaynayno daafurkii degmadan Quljeed waxaan idinku salaamaynaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa laga yaabaa inaan dadka qaarkood magacaabin laakiin halla laga ahado waa la badan yahay magacdu masaa isla mar ahaanta dadka beesha u dhashay waanu ku yarayna hadalka oo iyagu haddii odayaal ka joogaan iyo haddii cid kale joogaan aad baan ugu yarayna hadalka waxaa halkan arrintay noo xidhiidhin marka waxa weeyaan waan ku yaraynay hadalka iyaga oo waxaanu keenaynaa markasharafka ina soo ajiibtay ee ka soo qayb gashay ayaanu hadalka u badin doonaa barnaamijkana waxay noo xidhiidhin doonaa cilmi علم ويرمان أيها يروح يدون وحي أن كاهين هذين نلفوا قاتوا قل يا يقول بحنت بحن دوني ما تقول بحن دوني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته